aanu dhimanno horeyno dadkanagan aan nooleyn muddo badan tuuladuna way baaba'sanayd oo way rafaasanayd laakiin waxaan idin rajaynaynaa idinkuna niyadda ku dhisan doontaan maanta wixii laga bilaabo ka dambeeya dad Soomaaliyeed oo qumana nadiif ah noqotaan oo waxyaalaha kale ee qayaaliga iyo magaranaysa iska dhaaftaan dhammaantiin walaalaatiin dad Soomaaliyeed baa tiin fikirka kale oo idin geli kara ma jiraan ciidamadiina inaad soo dhaweysaan Soomaaliland inaad xoojisaan oo dad magaranaysa ay nadiif ah noqotaan mar walbana aad diyaar u noqotaan waddankiina saa u dhisan lahaydeen annagu ciidamada haddaan nahay kumaan dooska xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan naga go'an inaan waddankan u dhimanno aan xoreyno dadkanagana aan u qabanno ciyaar maana u soo qaadanin qoryaha iyo qalabkan aan sidano inaan waddankanaga aan xoreyno oo magaranaysaa nabad lagu noolaado adduunka aan la tartanaan talagalayno waddankan argixisada iskama laha dad shakhsiyaad gooni ah iskama laha dhammaanteen buu inaga dhexeeyaa Soomaalida inaga wada dhexeeyaa Soomaalida rabaa inaan magaranaysaa aan ku wada shaqeysano idinkana aad ka baxdaan dhibaatadan iyo waxaan tuulada iskuul loo dhiso carruurta wax la baro odayaashu masaajidda iyo goobo ay ku cibaadaystaan oo fiican oo ay ku nastaan loo dhiso waa dad waaweyn oo waayeela mar walba inay magaranaysaa la dhibaateeyo ama ayaga naftooda wax loo yeelo uma qalmaan hadduu ilaah yidhaahdo naabda amnigii iyo iskuuladkii baa la sugay waxay nagu soo xigi doonaa in goobihii kaleeta ee caafimaadkii iskuuladii waxbarashadii sida cuntooyinkii waxaad u baahantiin oo kaleeta in dawladda idin soo gaadho noocyada kale idinkana waxaa laga rabaa inaad noqotaan dad qoman oo wadani ah oo dalkooda u dhiman kara kulli waad dhimanaysaa naftaada ma noolaanaysid mar walba naftaada waad dhimanaysaa si walba haddaad isu reebto adiga ma noolaanaysid inaadan marka ogolaanin in carruurtaada iyo dalkaaga iyo deegaankaaga in uu nin la khalday oo dad kala weyn oo wuxuu dilaya iyo wuxuu daynaya aan kala garanayn meena guryaha hirtiisa intuu dhago inaad yeeshaa ogolaanin meenadaas ilmahaagaa ku dhimanaya adigaa ku dhimanaya dad Soomaaliyeed baa ku dhimanaya ummaddana baa ku dhimanaysa xaaladda deegaankiina waxaa la rabaa inaad ka warqabtaan oo qof walba gurigiisa iyo deegaanku ku nool yahay iyo meeshuu joogo dhaqdhaqaaqa inuu la socon karo cadow haddaad aragtaan inaad la soo xidhiidhaan guddoomiyihiinna iyo magaranaysaa dadka markaa ammaan ka shaqaynaya wadaar meeshaas waxaasaan ku aragnay halkaas waxaasaan ku jira waxaan laga qabto noo soo saar cadow intuu nagu dhibaatayn lahaa haddii laakiin aad noqotaan aniga maxaa iga galay indhahan waxba ma arko dhagahan waxba ma arko waa iska forsanaya si haddaan ka aamuso gurta anaa lay qabsanaya adoo indhaha iyo dhagahaaba isku haysta bay kugu qarxaysaa minaday ku dilaysaa marka dambana arrinta noocaasa inaad iska daysaa magaalada dhan hadda maintana degan inta basa ma degana dad badan baa ku nool tuulada waxaan aaminsanahay oo jooga oo ku nool dadkii inta bisa ka soo dhimaya macquul maa inta maqanna idinkaa gaadhsiinaya waddanka idinkaa iskale waxaa la rabaa inaad iska dhaaftaan magaranaysaa jiraaca iyo wadaneed xumada oo dalkiina aad u shaqaysaan carruurtiina soo korisay markaa mustaqbalkooda aad hagaajisaan ammaanka waan ku wada dhammaanteen aan ka wada shaqeyno annaguna waxaan isku daynaa in magaranaysaa aan mar walba idin garab taagnaano oon idin caawino haddii ay magaranaysaa ay waxqabad noqoto ammaan iyo mid kaleetaba maantii dad aad ku wanaagsan baa tihiin oo shacaba idinkoo shacaba qolba dawladdii dadka maamulo unbaa siday macnaha ay noqdaan bay noqonayaan indiina hadda haddaad kusoo aragtaan sida waddamadii hadda la xoreeyey sida buuliguudud oo kaleete yoontey oo kaleete sida dadka isu bedeleen noloshooda ka dareemi kartaan nimankan run ahaantii noloshiinna iyo magaranaysaa in idigu noolaataan ood idigu wax noqotaan dad ku faraxsan maaha waxaa loo baahan yahay inaad dadka noloshiinna ku faraxsan inaad noolaataan wax noqotaan raba inaad la shaqaysaan ood naftiinna idigu kala shaqaysaan ood mar raba taa diyaar u ahaataan intaasna halkay ku soo gaabinayaan raalli baad ahaanaysaan fadhiga badan iyo magaranaysaa waxoogaa inta shalati iyo daraan shaqadu intay socoto xoogaa waxaa iska dhici karta in la soo waxeeyo halkay intaasaan ku soo gaabinayaa dadka inta uga maqanna gaadhsiiya